Waan ku salaamay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Business-yada badaneed arkayso, alaabyada badaneed arkayso ee brand walba leh. Waxa laga keenaa Chinaha, waxa laga keenaa Bangladesh, waxa laga keenaa Indonesia, waxa laga keenaa Carbaha. Qaaradda Asia waxyaalaha lagu soo sameeyo ayaa dalkaaga la keenaa. Hadday shiid tahay, shiidka la xidho, mise baati baa u taqaaniin shiidka la xidho. Hadday tahay qalimaanta, saacadaha, muraayadaha, garankaad xidhan tahay, shaarkaad xidhan tahay, wax kasta qaaradaaba laga keenaa. So maanta haddaad doonaysid inaad national brand adoo aad la soo baxdo, dalkaagu magac u leeyahay, adigu magacaad samaysatay, ood ku matalayso dalkaaga, ood leedahay arrintan aan iibinayo iyo qalabkan aan iibinayo iyo alaabtan aan iibinayo waa national brand. Haddaad doonaysid inaad ka dhigto way suurto geli kartaa. National brand dadku waxay badiyaa u haystaanuun waxyaalaha dalka dhexdiisa laga sameeyo. Waa run way noqon kartaa, balse waxaa jira haddana wadano badan oo national brand ayagoo leh haddana alaabta qiimo dhimis awgeed, degdeg awgeed, iyo dee gacantii farsamadii sameynaysa awgeed inay wadan kale alaabta inta ka dalbadaan magacooga national brandka ku qorta. Waa daf qurbahaasaa ku shaqeeya oo maraykankaasaa ku shaqeeya oo waxa weeyaan meelo badan baa saa laga xitaa Carbahaasaa ku shaqeysa. Marka adiguna saa waad ku shaqeyn kartaa. Imika markadan Swedishkee H&M garamo waxaad arkaysaa ay ku qoran yihiin in lagu soo sameeyay Bangladesh. Way ku dul qoraan. Qurbaha xeerka u yaalaa ah waxay soo samaysteen halku ka imid wayna ku qoraan say dadku u ogaadaan. Waa transparence weeyaan, waa daacadnimo weeyaan. Marka arrintaasoo kale haddaad doonaysid maanta local businesskaaga inaad wax ka bedesho, inaad brand aad leedahay soo saarto, dee intaanad warshadda heer aad warshadii aad dalkaaga kaga dhex asaasto intaanad gaadhin meel kale ku meel gaadha alaabta waa ka dalban kartaa. Balse taa intaanad gaadhin waxa ka horeeya businesska dalkaaga dhexdiisa ma fahansantahay si wax u socdaan. Asaas baa loo baahan yahay, sal baa loo baahan yahay. Saharo odu maqasheenba tiimba guri walba hoosta laga soo dhisaa. Marka waa inaad businesskaaga hoosta ka soo bilowdo, hoosta ka soo dhigto. Maxaa asaas u noqonaya? Maxaad oran kartaa maanta heerkaasaan gaadhay? Waxaan beri ka soo bilaabay inaan qalimo iibiyo, inaan sharaab iibiyo, inaan shaax iibiyo. Arrintaa shaaxa anu markaan shaax maqlo waxaan soo xasuustaa waxyaalahan doonay inaan ku dambeeyo hadii la yiraahdo. Dadku waxaan oo kale way ka xishoodaan. Laakiin run ahaantan waxaan jeclaan lahaa in aan insha Allah aan furto goob aan shaaxa ku iibinayo. Dad badan baa yiraahdaa maxaa iskaga sheeg oo maxaan u sheegay maxaa jira qof kale haduu businesska ku dhaqaaqo ilaahay baa ayaa ugu tala galay arsaaqadiisa haduu kala soo baxay alxamdulillah. Laakiin waa fikradahan jeclaan lahaa inaan ku dambeeyo. Haddana waxa la weydiiyay way baad iminka ugu dhaqaaqi weyday. Iminka sababta ugu dhaqaaqi waayo waxa weeyaan waxaan rabaa waa fikradahan doonayo inaan ku fadhiisto ku nasto. Markaan khadkayga gaadho maaha imika. Waxaan ay dadka hyperactive-ka oo fikrad kaliya ku ekaan karin. Horaan uga caajisaa wax kaliya hadaan sameeyo. Waa inaan sanadba wax cusub isku dayo ka natiijo dhaliyo. Hadda ka natiijo dhalin waayo waan si yar waday laakiin waa inaan waxa markaan ka natiijo dhaliyo aan wax kale u gudbo. Dadkaasoo kalaana waxaan dadka hore wax uga caajisa wax kaliya ma ku ekaan karo. Laakiin waxaan aaminsanahay markaan aan yar weynaade da'an gaaro inay tahay xilligii la nasanayay. Marka fikradahan jeclaan lahaa inaan ku nasto waxa weeyaan inaan shaax iibiyo. Shaaxuna waa lacag walaalayaal. Ha ka khashaafin. Anu waxaan xasuustaa qiso wiil iiga sheekeeyay shaaxa uu iibinayay. Aroortii buu iibin jiray. Aroortiina waa xilliga ugu muhiimsan ee lacag ka qaban kartid waayo dad wada degdegaya oo haleel way gurigiina ka soo qoreecdaan amba shaqadii aan xilligii la toosay guriga ka hor gurigii ka soo baxay oo shaqo tagaya oo meelaha iyagu maraya u baahan wax si cunaan ayaad ka qabanaysaa lacagta ugu weyn. Marka wuxuu inankaas iga sheekeeyay inuu aroortii iibin jiray shaax. Markuu aroortii lacagtu illoog yahay uu ka arkay ayuu ku biiriyay gelinka dambe. Habeenkiina uu ku biiriyay laakiin wuxuu yiri shaqadii baa igu cuslaatay oo waan ku dhafar wuxuu yiri shaqada suuqu hawl sahlan ma waad ku dawaqaysaa buu yiri inta soo qof baa dariiqii soo maraya wala wada qaylinaya wala wada hadlaya
dabayshii baa ku qaadaysa, siigadii baa ku qaadaysa, gawaarigii baa huf kaaga siinaya meesha waa dawaqaysaa buu yidhi. Marka habeenkii waan iska daayay buu yidhi. Laakiin aroortii casarkii baan ka qabtay buu yidhi. Lacagan hooyaday ku geeyo dhakhtarka oo suu sheegaya hindii hooyadii geeyey weliba halkaa lagu soo dhacay oo wuxuu yidhi lacag badan oo khasaare nagaga dhacday. Haddana alxamdulilah uu ku guuleystay hooyadii in wuxuu qabanay u soo qabto. Kadib markuu soo noqday haddana dadaalkii wuu sii wadayo shaaxaas wuxuu yidhi reer baan ka dhistay. kadibna meel yar baan furtay buu yidhi si aan dariiqa uga kaco. Eeg hadda dadka caynkaasoo kale ah tviyadeen laga wareystaa fiicneed balse dadkii baa khajilaya dee ma jeclo qofna inuu ka sheekeeyo sheekooyinka caynkaasa. Shaqooyinka caynkaasoo kale ah waa kuwa ugu lacagta badan ee ugu lacagta degdega lagu helo. Degdeg quick maanta haddaad sharaab yar laaqdo oo bartaa yar la joogsato horaa lagaaga iibsanaya waayo qof haraadan baa kusoo agmaraya, qof aan maanta dhan waxba cabin baa kusoo agmaraya. Marka shaqooyinka yaryar ee dadku ka khashaafaan ayaa ugu lacag badan uguna lacag degdegsan. Waxaad isweydiin kartaa markaa dadka halkaa wax ku iibinaya maxay noloshooda isku bedeli lahaday maalin kasta halkaa u fadhiyaan. Haddaba waxaad ogaataa dadka badidooda shaqooyinka ku jira inay ka dambeeyaan ubad iskoolo u dhiganaya, jaamacada u dhiganaya, reero dhan baa ku dhisan. Marka qofku waxa uma dhigmayo waa nolol maalmeedkooda xaga kala soo baxayaan. That's why ayna isbedel badan aanad u arkayn. Laakiin adigu markaad haysato hooyo aabo ama qofku taageera oon waxba kaaga baahnayn waxaad hesho waa urursan kartaa. Way dhici kartaa waalidkaaga inaad hadiyad siiso, inaad maanta biilkii aqalka bixiso, inaad kooraanka faktuurka kaga bixiso ood ka farxaysa xaafadda way dhici kartaa. Laakiin badiyaa maanta dhalinyartan iminka jirta waa dad la wada gacan qabanayo oo nuulkiisii la siinayo oo cuwaaftiisii la siinayo isagii la kulkulinayo ilaa iminka da'da 20aad u taagan yahay haddayna ka badnaynba. Marka adigii maanta way yaraanaysaa dad badan maanan u arkay ay yar tahayna wax laga suga ayagay. Marka bacdamaan waxba lagaa sugayn waxaad meesha ka qabsato horeba wax uga urursan kartaa. Haddii wax lagaa sugayana dee bakrakadu waxay ku jirtaa inaad xaafadda lacagta biilka maanta la biishanaya aad siiso inta kalena aad urursato. Ilaahay laga yaabaa ilaahay baa kugu barakeyn ducada kaliya baad ku barakoobaysaa. Wareerkiina maanta dhinacna waa ka beelin kartaa dhinacna waxbaad ka urursan kartaa. Marka walaalayaal shaqooyinka yaryar laga khashaafayo yaa ayaa ugu lacag badan ugu degdeg badan waliba. Shaqooyinka yaryar laga khashaafayo ayaa lacagtu degdegu dadka ka soo gashaa. Maanta mulkiilayaasha badan ee Soomaaliyeed ee muxuu ahaa heerka gaadhay mid mooye badidoodu hoosta ka soo wada bilaabeen. Midkaan hoosta ka soo bilaabin waa qof familkiisa ka dhaxlay amba meel business qof kale u dhiibtay oo share gashaday waxyaalahaas. Laakiin intii dadkii berigii hore hoosta wax ka soo bilaabeen. Waxyaalo laga khashaafayo maanta ay dadku ka shaqayn jireen. Waxyaalahan shaqooyinkan hoosta laga soo bilaabayo waa waxyaalaha la isku ammaano wadada qaar Mareykanka. Qof waxa la dhaho qofkaasi hasal buu soo galay, wuu soo xorxoray, wuu soo kaca kufay. Ever from nothing buu ka soo bilaabay baa lagu leeyahay. Dadkaasoo kale waa la amaanaa. Laakiin innaga waxay noqotay wax la isku qoslo, wax la iskaga toocsado. Iminka West Africa waa dad maskaxiyan bisil oo hore u maray. Nin waxaad arkaysaa isagoo shaadh iyo suud kuu soo xidhay kaa iibinaya naalo, kaa iibinaya qureec subaxdii. Isku kaasoo libisayaaba mentality-gaasay leeyihiin. Inaguna suularka waxaynu ku tagnaa caroosyada iyo xafladaha. Kan wuxuu taagan yahay businessman baan ah oo maxay diidaynana labisan kulay isagoo kaa iibinaya dariiqi wax ku iibinaya. Isagoo garan caadi gashan oo arkaysaa laakiin dad waxa jira xaragooda markay wax iibinayaan. Haddaba intaanad gaadhin brand baan doonayaa ka soo sameeyo Asia oo wadannadaasaan tagayaa intaanad gaadhin heerka aanad weli gaadhin horta waa inaad localka aad fahanto businesska sida u socdo. Wax yar ku bilow oo baahideedu taagan tahay. Maxaad ku bilaabi kartaa oo iibin kartaa? Ma sharaabaad iibin intaad gurigaaga ku soo diyaarisid suuqa boojiso baad meel ku soo ridan oo sida banaankaad ula soo maray intaad baaskiil riibsato halka dambe kaga rakibto ayaad hadba intaad gaari ag joogsato ama qof aad joogsato oran hooyga iibso. Ma waxaad soo iibin sandwich yarood guriga ku soo diyaarisay mise boos baad suuqa ka raadsan oo bahal yar baad samaysanoo halkaasaad isagoo kulul oo degdega oo wax yaroo degdegood isku geegeyso haddana macaan oo adigu ka soo fikirta sandwichkaas aad u samaynayso macaan
oo dadku jecel yihiin oo kuyuga lagu soo galaad halkaa ku iibin goormaad ku iibin ood eegan kartaa ma xilligay dadku daalaan ay suuqa ku daalaan dadka wax ku iibinaya iyadaadna wax kasii iibin ma dadka cararaya soo rawaxayba wax ka iibin waa inaad waqtiyo istaraatiijigana eegato ma quraacda hore subaxda hore ma duhurka ma habeenkii marka la kala hoyanayo maxaad jiraa ood iibin kartaa ma dhar baad iibin oo online baad ka iibin oo maanta aaladda halkaan iska wada daawanano dad baa wax ka xayeysiiya khamaaradiiba laga xayeysiinaya oo saacadiiba laga xayeysiinaya ma waxyaalahaasaad ku bilaabay maxaad samayn lahayd intaa fadhin lahayd maxaad waqtigaaga uga faa'iideyn kartaa oo shaqooyinkaa yaryar ee dadku ka khashaafayaan ayay lacagta ku jirtaaye lacagta bilowga dhanaad raadinaysaba halkaaba laga heli karaaye bal ka fikir maxaa niyadda kaaga soo dhacaya maanta markaad bulshada u fiirsato maxaa ay dadku u baahan yihiin xaafadahaagaad ka bilaabi kartaa maxay dadku meel fog u doontaan ood adigu u soo dhoweyn kartaa suuqan la wada imanayo dadku maxay badiyaa raadiyaan oo adigu wax ka sii fiican aad u asaasi kartaa ood u samayn kartaa goobtaad gasho ma gaadiidkaa ku yar sidee bay dhici kartaa maanta inaad gaadiid meeshaa keento oo dadkii aad suuqii u qaaddood suuqa uga soo celiso hadba baahida jirta jawaabteeda waa heli kartaa markaa waxaa jira shaqooyin yaryar oo si degdega aad lacag ugu heli karto lacagtaasaa keenaysa inaad brand marka aad samaysato wadano kale aad wax kaga dalban karto oo dalkii ku dhex iibin karto hadhow toole levelka ugu sareeya wuxuu noqonayaa dee warshadaha caalamka aad waxu doonanaysaba dalkaaga inaad ka asaasto marka sidaa loo hadlayo kulley way iska fududahay oo ficilkaa yaa adag laakiin haddana wax walba dream ayuu ku bilaabmaa wax walba niyad ayuu ku bilaabmaa anigu waxaan iibiyaa koorsooyin baan iibiyaa waxweeyaan entrepreneuriagay ka mid tahay koorsooyin baan iibiyaa anu koorsooyinka maan ka gudbi rabaa haa inaan ka gudbaan doonayaa ileen dee saan u hadli maayo uno saan waxu micneen maayo marunbuu waxweeyaan dadku ay fahmayaan waa inaa waxay fahmeen ka gudubtide markaanu fikrado waan hayaa fikradahayga aan u wareegayana waxaa kamid a inaan business fiican aan samaysto oo shaaxaasi ka mid yahay oo waxyaalo kaloon rabin inaan halkan ka faahfaahiyay ka mid yihiin ayaan usii jid socdaa markaa qofku waa inuu asaas yeesho anu asaaskayga hadda waan ku jiraa kadib baan uga gudbayaa waxaa marka adigu asaaskaaga soo raadso maxaa kuu fudud oo ka bilaabi kartaa oo hadhow dreamkaaga ugu weyna ugu dambeyn kartaa markaa shaqooyinka yaryar ha ka khashaafin lacag weyn baa ku jirta halkaa wax weyn baa kaaga soo bixi kara oo next level aad ugu dhaqaaqayso ninkaan iiga sheekeynaya telefoonka soo saaray wuxuu arrin u gudbay eg aaladan aynu ku jirno ee meta muxuu ku bilaabay FB buu ku bilaabay oo bilaashu dadka uga dhigay markii dambe hadba wax buu ku biiriyey hadba business buu ku biiriyey hadba shirkad hore usii jirtay buu iibsaday waxa weeyaan arrintan waad riixi kartaa laakiin wax walba asaas buu u baahan yahay adoo dalkaagii jooga waa inaad asaas yeelan karto ood soran karto maanta businesskayga aan heerka ka gaadhay halkaasaan berigaa kasoo bilaabay ma qalimaadi intaad qalimo soo iibsataad dib u iibin jirta in wax dul saarato ma iskriin baad xirxidhaysoo dib u iibinaysay ma baraf baad xirxidhi jirtoo dib u iibinaysay halkeed kasoo bilowday waxaanaad doonaysa inaad ku dambayso marka qofku waynu asaas yeelan karo marka asaaskaaga shaqooyinka yaryar bay ku jirtaa marka business laga hadlayo kuma jirto bangi baan u tagoon ku yidhi waxay amaahi kuma jirto qof baan soo buriyoon ku yidhi sheerkan wax ku darso waxay horta ku jirtaa adigu maskaxdaada sideeba u tuujin kartaa maxaad keligaa qabsan kartaa bay ku jirtaa horta waa inaad adigu keligaa wax qabsato dadku badiyaa steebyada way ka boogboodaan horta keligaa wax qabso si lagu aamino keligaa qabso si wax lagugu darsan karo keligaa wax qabso si loo arki karo qof kalsooni leh keligaa wax qabso si aad u yeelato qof experience leh maanta ninka Amazon samaystay wuxuu yidhi waxaan ka soo shaqeeyey McDonald'ska markeeska xagga lacagta laga bixiyo aad lacagta qofka ka qaadaysa ayuu joogay mar weelkuu soo meydhi jiray mar waxay dhulkuu masaxayay intaa muxuu uga dan lahaa ninkaasi inuu experience ku yeesho shaqaaluhu sidee bay u shaqeeyaan because ninkan aqligiisa waxaa ku jiray in hadduu maanta business furto inaan la dhicin wuxuu og yahay
iyo inuu shaqada uu sameynayo ka fiicinaysiiyo fiirmiyada amba shirkaduhu siday wax u qabtaan. marka isagu intuuna businesskii ku dhaqaaqin wuxuu horta soo dareemay shaqaaluhu muxuu ku nool yahay, sidee buu u shaqeeyaa, imise saacadood buu fadhin karaa, wax may khayaamayaan, ma dad daacad u shaqayn karaa, sidee bay ku khayaami karaan, sidee bay daacad u noqon karaan, waxaasoo dhan buu isha kusoo dhuftuu soo fahmay. marka ninkii waa nin is og maanta markuu business furtay wuu garanaya dadkan u shaqaynaya waxa ka suurtooba. marka haddaad doonaysa inaad wax ku dhaqaaqdid horta waa inaad experience lahaatid, waa inaad keligaa horta wax qabsatid si lagu aamino, waa inaad keligaa wax qabsatid ood ku guulaysatid si aad naftaada u aaminto. qofku goormuu naftiisa aaminaa? qofku naftiisa wuxuu aaminaa markuu isagu naftiisa wax u qabsado wixiina ku guulaysto ayuu leeyahay allay lehe arrinta haddaad ka baxday dee wax kalena waa ka bixi kartaa, waad is aaminaysaa. qof is aaminsanunba adduunkana walaalayaal wax ku qabsan karaa. marka horta adigu asaas yeelo. xagee doonaysa inaad wax kasoo bilowdad oo tiraahdid heerkaa aan gaadhay berigii meeshaasuu kasoo shidaal qaatoon ka bilaabay. marka maanta u fiirso beeyadaad ku nooshahay maxaa ugu baahi badan, ugu fududod adigu qaban kartaa. waxyaalaha meel ku qoro. markaad waxaa ku qorato haddaad isleedahay waxaa weli ma gaadhi kartid, maxaad adigu ku bilaabi kartaa oo ay aqoontaada ku siisay oo ugu fudud weliba. waxa ugu fudud baa lagu bilaabaa. maxaa adiga kuu fudud ood samayn kartaa ood iibin kartaa. marka u fiirso waxyaalaha waxaad karaysana ku bilow, waxa xaggaa kaaga soo baxana hadba wax yaroo kale business ku bilow, hadba wax yaroo kale businesska kusoo kordhay. saasaad ku weynaan doontaa insha allah. anu waxaad la hadlayaa dadka aan fadhiga loogu talagelin ee creativeka ee dhaqdhaqaaqa jecel ee jecel inay wax asaasaan, wax sameeyaan, wax la soo baxaan. dadkaasuu ku socdaa muuqaalkani. fadhiga ka kac, waxaad awoodisid ka bilow. waxaa markaad wax ku heshana waxaa wax ka weyn bay kuu tabin doontaa insha allah. markaa marnamo naftaada ha ka shakin. aqoonta kordhisoha actionka ku xigsi. maanta waxaa jira niman badan oo muxuuha cadaana badiyaa markaan tusaale soo qaadanayo Maraykana amba xagga China kasoo jeeda waxaan ma ka sheekeeyaa waayo because Africa way ku yaryihiin dad hore u maray oo successka oo ka sheekeynaya. sababtu maxay tahay? sababtu walaaleed oo ogtihiin Afrikadu waxay ugu yar tahay way jiraan qaar ka sheekeeya laakiin markay ka sheekeynayaan waxaad moodaa xaqiiqdiina boqolkiiba boqol ku sheegin. sababtu waxa weeye dadkii cabsi baa ku jirta. cabsi waxay ugu jirtaa mentality-ga Afrikada inkastoona dadka aanan isku wada dareyn haddana dadku waxay u badan yihiin in ma aha inay adiga kuu ekaadaan ee waxay u badan yihiin dadku inaad adigu ayaga u ekaato. that's why buu xasadka ugu badan yahay. that's why buu ugu badan yahay in la yidhaha qofkan waxbaa ka iibsana qofkan la dooro. yani xasad why buu xasadku qofkan ugu jiraa? because ma dareensana isaga aqliga ku jira xooga ku jira wuxuu qabsan karayo ma dareensana. marka qofkii kale uu ka xun yahay. marka cabsidaasaa ku jirta dadka hore u maray Afrika inayna successkooda ka sheekeen halkay u mareen iyo si wax u qabsadeen because waxay ka cabsoonayaan in laga daba imaado. ayagana kalsooni daraa yara hays. ma fahanti maxaa lagaa daba iman horaaba u socotayba. marka waxa weeyaan way yar tahay inaan Afrikada kusoo qaato tusaalooyin laakiin way jiraan insha allah qaar baan biografigooda soo akhrisan doonaa waan iga sheekeyn doonaa. waxyaan marnaba ha iska shakin. wax waa bedeli kartaa. local businesskaaga waxbaa ka bedeli kartaa. magac waad ku yeelan kartaa. waxbaa kusoo kordhin kartaa. qofka entrepreneurkii ee wax qabanaya especially hadduu social entrepreneur yahay waa mid dadkii adeegii u fududaynaya. marka waxaad tahay qaybtii waxaad kasoo gelaysaa nolosha isbedelkii baad kasoo gelaysaa, horumarkii baad kasoo gelaysaa, qayb ka qaadanaysaa. marka nafta ha ka shakin. u qabo waxay jeceshahay. waa dadka firfircoonida leh ee jecel inay mar walba wax cusub la soo baxaan. ku dadaal shaqooyinka yaryar ayay lacagta ugu horeysa degdega lagu helaya ay ku jiraan. of course waxay u baahan tahay dadaal. of course waxay u baahan tahay inaad ku tala gasho wixiinu kuu shaqayn waayo bilowga. dee hadduu bilowga kuu shaqayn waayo laga yaabo wax inaad ka bedelayso. midda kale waxaad ogaataa markaad wax iibinayso product ma iibinaysid. waxaad iibinaysaa emotion baad iibinaysaa. emotionku muxuu yahay? maanta banaankaasaad la joogsatay sharaab. qof baa meeshay soo maray.
wad salaami salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaashayay dib horta dadka been waxba ha kaga iibin waayo waxaad been ku hesho baraka male dadka run wax kaga iibi waxaad taagan tahay haddaad arday tahay waxaad leedahay arday baan ahay xalkan waxaan doonayaa inaan kala soo yarbaxo noolkaygii xaafadii biilkiisii maad iga iibsan kartaa sharaabkan baan iibinayaa qofkii emotional yaad ka dhigtay qofkii wuu ku dareemayaa ilqadaad iibinaysaa gabadh meesha soo martaad arkaysaa waxaad leedahay allay leeyahay wejigaagaasi qurux badana ilqadahan wuu kusoo bixi lahaa qofkii emotion baad ka iibis marka waxa weeyaan product lama iibiyo emotion baa la iibiyaa qofkii waxa weeyaan dareenkiisii baad meel ka taabanaysaa walaaltinimo bili-aadannimo islaamnimo maanta hadday runkaa tahay xaqii tahay inaad dhulka seexato onaad sariir haysan dee businesskaaga adoo iibinaya qof meesha soo maray waxaad leedahay warniyow waxaad taagan tahay sharaabkan kaa layga iibso oo baasha walaalkaa layga iibso inta yareen ka helayo sariir baan rabaa inaan siistee dhulkiibu dhabarku igu xanuunay emotion baad wax dadkii kaga iibisa been maaha waana run hadday run tahay de so waxa weeyaan inaad businesskaaga markaad wax iibinayso aad ku iibiso xaqiiq ku haysata waay baad businesskan u gashay xaqiiq baa jirta hadduu yahay waxaad ka xishoonaysaa ha sheegin laakiin hadduu yahay wax aad xaqiiq oo wax run ah ood wax ku bedeli karayso qofkii waa uga sheekeyn kartaa waxaad leedahay niyow arrintaabay haysata waxaan rabaa inaan arrintaa kaga baxo haddaad guurdoonta waxaad leedahay walaalow inankaa dhalinyartan kuma jiri karayo maantao dhan dhallinyarnimadaasi reer baan rabaa inaan dhisto alaabtanaan iibinayaa si aan nolol u samaysto qofkii waa kuu joogsanayaa emotion baa la iibiyaa marka emotionkaagana been ha ka dhigin seenu barakadu kaaga duulin waa inay run ku dhisnaan karto ha xishoonin dadaalkaaga ha ka xishoonin horumarkaaga ha ka xishoonin dadka waa inay iska iloodinsay ku arkayaan dadkani geel baa wada dhaqan jirteen mise beriisya baastay ku siinayeen maanta xaaladdaa ku jirto qofkanaad aragtidiisa ka yaabsan tahay ma waxbuu noloshaada kusoo kordhiyaa uu ka bedelay mise meeshaa doonaysad buu ku gaadhsiinaya waa maya sidii la doonaya ha lagu arko ugu dambeynta waxaad tahay qofkii BMW lagu arkayay ee hore u soconayay kolba qaaradu doonaya u dalxiis tagaya ee soo nasanaya ee cimrada ku noqnoqonaya ee dalkiisii dadkiisii anfacaya oo xaafadiisii ka saaraya jiingada dhagax u dhisaya qofkaasaa doonaysaa inaad noqoto marka aragtida dadka maalintaad iska dayso sidee lagu arkiyo waa lagaa tucsani waa lagaa qoslaya maalinta arrimaha ka hadho waa maalinta ay wax kuu hirgelayaan because waxaad tahay qof adduunyadan doonaya intaa uu nool yahay laba dhagax in wax kala soo dhex baxo qof intaa uu jaaniska u haysto inuu maalin walba nool yahay doonaya inuu adduunkan wax ka qabsado oo sidaa u muudsado intuu karayo marka ilaahay aamin naftaada aamin bili-aadan aragtidooda iyo waxay sheegayaanna dhagaxa ka laabo la soo bax oo qabso wixii awoodaada ah ilaahina uu kuu barakeenaya haddaad ilaahay aaminto marka aad baan kuu salaamayaa ha isdhiganin wax waa bedeli kartaa naftaadana waa ka bedeli kartaa dadkaad wax ka iibinaysana waxbaad la qaban kartaa naftooda waad bedeli kartaa of course because waxay u baahan yihiin bay soo doonteen waxa weeyaan hala cabsoon bahasha hala cabsoon خير بدل ما نقول صدريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته